SketchUp marka ugu horeysa furtid programka ayaa wuxuu kuu ogol yahay inaad doorato qaab dhismeed. Qaab dhismeedka dooranaysidna waxay ku xiran tahay SketchUp ulajeedada ka leedahay. Marka qaab dhismeedyadan kala duwan aad ujeedid, mid kastaba waxyaalo gaar oo sameeya, sida background color-ko kale, edge style-ko kale, iyo qaab cabirida. Ma meter ku cabireysaa ama millimeters ayaa wax ku cabireysaa. Waxyaalahaas ayay sameeyaan qaab dhismeedyadan kala duwan. Marka qaab dhismeed markaad dooranaysid, waxaa keli ku dhahdaa calaamada wadnaha u eg oo ku hoostaal sawirka. Marka hadda mar walbo oo aad file cusub furtid, waxaa kuu furmaayo qaab dhismeedka dooratay. Qaab dhismeedyadan kale hal waa u fiirin kartaa hadaa rabto, ama waxaa keli ku dhigi kartaa more templates, yacni qaab dhismeedyo kalo badan. Hadda anaga waxaa dooraneynaa qaab dhismeedka ah simple iyo inches. Waxaa keli ku dhahdaa calaamada wadnaha u eg oo ku hoostaal sawirka. Markaa rabtid inaad furtid qaab dhismeedka dooratayna, waxaa keli ku sii dhahdaa sawirka korkiisa. Hadaa rabto inaad iska soo bedesho qaab dhismeedka dooratay, mar walba waxaad tagi kartaa menu kore meeshay ku qoran tahay help, keli ku dheh. Waxaa keli ku sii dhahdaa welcome to SketchUp. Kadibna more templates keli ku sii dheh. Kasii dhex dooro meeshaan qaab dhismeedka nooca rabtid.